بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan ku soo laabanay dalka aniga iyo wafdi aan hogaaminayay ay ka mid yihiin wasiiro xildhibaano howlwadaano ka socda xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha wafdigaasi waxa uu kormeer ku tagay midowga Yurub magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium waan lahayn wada hadallo aan la yeelanay ra'iisul wasaaraha dalka Belgium waan ka wada hadalnay sidii la isaga kaashan lahaa arrimaha amniga horumarinta dhaqaalaha la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta federaaleynta oo dalkaasi ay u leeyihiin khibrad dheer sidoo kale waxaan kulan dheer la yeelanay madaxa ugu sareeya midowga Yurub oo qaabilsan arrimaha dibadda iyo siyaasadda waxa kale oo la yeelanay shir madaxda midowga Yurub oo qaabilsan arrimaha horumarka arrimaha gargaarka arrimaha wax soo saarka oo ay ka mid yihiin kalluumaysiga sidoo kale waxaan la yeelanay shir ballaaran dhammaan safiirada midowga Yurub oo dhan u qaabilsan arrimaha amniga iyo siyaasadda waxa kale oo halkaas aan ka qayb qaatay shir aan anigu gudoominayay ay isugu yimideen dhammaan deeq-bixiyayaasha daneeya arrimaha Soomaaliya oo looga hadlayay arrimaha amniga gaar ahaan mashruuca kala guurka amniga ee dib u dhiska ciidanka iyo sidii dawladda Soomaaliyeed mustaqbalka dhow ula wareegi lahayd amniga waddanka oo dhan halkaas waxaan ku soo aragnay dawlado ka kala socda dunida oo dhan oo aaminsan Soomaaliya inay qorayso taariikh cusub Soomaaliya inay gedisay page cusub Soomaaliya inay leedahay fursad cusub oo aaminsan in caawinaadda hadda ay Soomaaliya caawinayaan ay ka duwan tahay caawinaadii hore maadaama ay aaminsan yihiin inay qayb ka noqonayaan taariikh cusub mashruucii kala guurka ee amniga oo la ansixiyay adduunyaduna ay aqbashay iyadoo nagu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay nagala shaqayn doonaan sidii loo hirgelin lahaa ka sokow midowga Yurub iyo dawladda Soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen arrimaha soo socda in midowga Yurub uu siiyo kaalmo dhaqaale oo lagu kabi doono miisaaniyadda dalka oo gaaraysa 100 milyan oo euro taasoo ugu dhiganta qiyaastii 120 milyan oo dollar lacagtaasi waxa lagu kaalmeyn doonaa dawladda Soomaaliya si ay ugu kaalmaysato miisaaniyaddeeda waxaana loogu soo shubi doonaa bangiga dhexe macnaheedu waxay tahay waa dhaqaale si toos ah midowga Yurub uu siin doono dawladda Soomaaliya sidoo kale midowga Yurub iyo dawladda Soomaaliya waxay ku heshiiyeen in mashruuca dib u dhiska ciidanka iyo amniga qorshihii la soo ansixiyay kala guurka in midowga Yurub ay ku kaalmeeyaan dhaqaale gaaraya 80 milyan oo euro oo u dhigma qiyaastii 100 milyan oo dollar sida maanta ay tahay sidoo kale waxaan ku heshiinay inay nagala shaqeeyaan arrimo ay ka mid yihiin horumarinta khayraadka gaar ahaan kalluumaysiga oo ay nagala shaqeeyaan sidii ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan uga faa'iideysan lahaayeen sidii arrimaha khayraadka gaar ahaan kalluumaysiga looga munaafacadsan lahaa sidoo kale waxaan isla garanay inay nagala shaqeeyaan ka hortagga jaridda dhulka nabaad guurka iyo dhoofinta dhuxusha sharci darrada intaas ka sokow waxaan isla garanay in shirka caalamiga ah ee sanadkiiba mar la qabto oo lagu horumariyo arrimaha Soomaaliya lagu qabto isla midowga Yurub gaar ahaan magaalada Brussels 26 Juun oo sanadkan taasoo ay ka wada qaybgeli doonaan madaxda Soomaaliyeed iyo dad badan oo Soomaaliyeed taasoo lagu falaqayn doono sidii Soomaaliya loogu caawin lahaa dhaqaale iyo siyaasadba
intaas ka sokow waxaan ka qayb galnay shirar kale oo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen inaan la kulannay safiirro ka soo jeeda Afrika, Caribbean-ka iyo Pacific-ka oo ku midoobay urur Soomaaliyana ay ka tahay xubin kuwaasoo iyaguna dareensan Soomaaliya inay gaartay meel aad u wanaagsan ballan qaadana inay garab istaagi doonaan dalka Soomaaliyeed. ugu dambeyntii waxaan aragnay dad badan oo Soomaaliyeed oo ah jaaliyadda Belgium iyo jaaliyado badan oo ka kala yimid Yurub oo dhan waxay soo raaceen dadkaasi baabuur iyo diyaarado qaarkood 7 saacadood iyo 8 saacadood ay soo socdeen si ay u tusaan dawladda Soomaaliyeed taageerada ay u hayaan. waxaa ka muuqatay yididiilo Soomaalinimo iyo qaran jacayl waxay runtii igu dhaliyeen inaan dareemo dadka Soomaaliyeed sida ay u dareensan yihiin xataa markay ay joogaan qurbaha in dalkooda ay qayb ka noqdaan horumarkiisa. ugu dambeyntii safarkii aan ku tagnay dalka Belgium iyo wada shaqayntana dhex martay midowga Yurub iyo annagoo ah dawladda Soomaaliyeed waxaa ka muuqday geedi socod ah adduunyada inay Soomaaliya ka aaminsan tahay Soomaaliya cusub inay dhalatay. ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaanna waxaan ugu bishaaraynayaa in maadaama adduunyada ay sidaas naga aaminsan tahay innaguna kulligeen si aan uga faa'iidaysano fursadda hadda aan idiin sheegay iyo kuwa kaloo na hor yaalla oo isi soo daba socda inaad nagala shaqaysaan midnimada iyo xoojinta qarannimada Soomaaliyeed. waa mahadsantahay.